waftigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shiro socdaalkiisa ku weelinayay wasiirada wasaaradaha maaliyadda qorsheynta maalgashiga caalamiga iyo maareeyaha dekedda magaalada Berbera safiirka Soomaaliland dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka isu tagay Imaaraadka Carabta sidoo kale ganacsatada reer Soomaaliland waxaana madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shiro free zone wuxuu ka mid ahaa labadii mashruuc markii hore aan ku heshiinay DB World midna wuxuu dekedda midna free zone kaniga runtii xaggayga uu ka qiimo badan yahay dekedda halkan Jabal Cali wax ka shaqeeya ilaa 150,000 oo qof 150,000 ilaa 100,000 oo qof baa ka shaqeeya waxa degan 7,700 shirkado maanta Djibouti baan tagnay free zone yar bay ahayd ku bilowday berigii doorar la dhisayay waxay way buuxdaa 350 shirkadood baa jooga 1,000 qofna way ka shaqeeyaan أنا waxaan ahay maareeyaha dekedda Soomaaliland dekedda Berbera mooyada dekedda kale inoo jiraan ma jiraan marka oo shaqeeya runtii hawsha aanu nimi dubayna waa hawsha ku saabsan heshiis saddex geesooda maadeen dalka wax ka tiri jiray ilaa imika runtii waxaad oran kartaa doorkooda waxqabad iyo horumar ee wadanku runtii waxa laga yaabaa sidii hore uma awood badna laakiin runtii doorar wanaagsan oo wax ay ka qaataan waxaan oran karaa runtii mushaakilaad fara badan oo qurbajoog u leeyahay magaalooyinka kale ama wadamada kale inta badan laga arko waa jaaliyad runtii ay ku yar tahay arkimaysi reer waxa inta badan arkaysan TV-yada dad qurbajoog oo TV iska soo duubo siyaasadda hadiya jeer gudaha la isku waxa iyaguna madashaasi ka hadlay xubno kamid ah ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland oo kamid yahay gudoomiyaha shirkadaha Star Group iyo sidoo kale ganacsada Barjeex oo caanka Soomaaliland way ka badnaayeen dadkii joogay reer Soomaaliland tii markii la soo qaxayay inta uu joogtay way sii yaraanayeen maroo dadku waxay soo galeen halkan ilaa iyo dhowr kontonadii ilaa 60-70 waa ugu badnayd ilaa iyo 80kii marka jaaliyada aad u weyn oo ballaaran Soomaaliland baa joogtay oo jaaliyad gooliye waxaan leeyahay Soomaaliland dadka ka mid ah bahdaha Soomaaliba laakiin Soomaaliland markay sheegay dadka ugu badan ee joogay wadanka waxay ahaayeen reer Soomaaliland marka Soomaaliland reer koonfureedka oo kale mesela ma ahayn 3% ma ahayn 2% 97% waxay ahaayeen reer Soomaaliland dadka Soomaaliyeed joogtay marka calaaqaadka iyo xiriirka inta wala soo walaha dad badan oo reer Soomaaliland oo waxa jiray mas'uuliyiin waaweyn ka hayay halkan wadanka bay noqotay dawladii haday tahay shuruucda oo مثلا الشيخ سعيد الله الحريصنا waxay ahaayeen rag la shaqeeya rag oo reer Soomaaliland qaarba wali noo tabaxiisu wuxuu ahaa reer Soomaaliland darowlkiisu wuxuu ahaa reer Soomaaliland marka waxay runtii waxay ahaayeen inkastoo inay siday ahayd looga faa'iideysan haddana waxay muhiim meelka ka ahayd waftigan soo aftaray diyaar baan ugu faraxsanahay maanta jaaliyadda horta intaan joognay Soomaaliland jirtay halkan joognay oo markii ugu horeysay wasiirada soo horfadhiistaan oo loo horta wuxuu qaftay iyo wuxuu dalka u qaftay oo dadka u qaftay oo nolosha aad baan ugu faraxsanahay taasoo waxa lagu soo dhiirada sameeyay waxa ku hadlaysay marka lagu hadlayna uu qurux badan yahay si loo qalabeeyana way adagtay waliba meesha joogtaan oo xasaas waliba uu sameeyay isla kabaanada sheegay adiguna waa mushkilad cusub oo ku toomo kala yahay iyo marka hore wuxuu sii taagtaagay inuu ku sii taagtaagay oo kala jaar Allah idin fiiriyay aan yiraahdana idiginda odayaal farbadana waa leeyihiin oo ma saacado ku odayaal badan baa doqol xisala bato waxa ay hayso sheego wala waxa ay waxa saaqban laha waxa la qaban haduu wax dumay mucaarad ma
dawladda hadday tiraahdo waliba dee dawladda imika joogta ee kulmiye ma u odhan karta dayaan la caaridino mucaaradad bay gebigeedu ku caanbaxdo iyadoo iscaaradiisa mararka qaarkood markaa taasuna uguma fadhino in ay halkaa yani dee ka fadkudin karto mucaarad lagu odhan karo mucaarad baa seen waxay leeyihin mucaarad baa seen waxyaala taa waxaan oo lahaa labadu way isu tusan yihiin in waliba halka jooga wanaagunba kaga waajiba ha qabto waxaana waxa weeye wax la isu geegeeyey waxaa la isu geegeeyey nin waliba tiskiisa hadduu soo qaadana waxbay noqon oo weliba haddii mucaarad leeyahay haddii dawlad leeyahayba in bari iyo galbeed ba la eego oo weliba bari la eego weliba in bari la eego wax fara badan ayaa yaaloo qabi ah oo dadku uu kala hor marayo wax fara dawladnimo iyo usii kala duway oo waxaan leeyahay halkaana xooga hala saaro midna way iga su-aalo weliba wasiirkaan weydiinayaa sacad ka sheekayseen runtii wax weyn baa ka sheekayseen oo si wax loo qabtay iyo haddii bukuroon yahay halkay maanta soo gaadhiyiin berrita wax la kala seexanayo oo weliba heshiiskuna uu 3 geesood yahay ayaa noo sheegteen 3 geesoodkaa dadka waa ku waruun oo markii hore DBWL iyo Somaliland baa lahaa waxbaa weynayay markii labaadna waa tii saddexaad waxa lagu soo daray Ethiopia iyadoo wixii laga doonaya noo sharaxdo tii dib meesha loo socdo halka wax laga iibinaya oo baahi ay keentay kow sidee wax loo kala leeyahay ma kala badbana iyagoo kala badbay leeyahay markii labadooda la isu geeyo ilaa meesha ma nagu leenahay ma haddii bukuray wax siman baynu leenahay halkaan lafteed maynaga wax badan soo inuu ku sheegay halkaa taawan weydiinay midna hoos baan ku xamalnaa dawladdu markii dawladdu soo baxday dawladdu joogto maanta carab waqtigii bergelootay wax la yara kala kacay weeligi meel baynu maray meesha macaamilo badan bay naga dhaxayn jirtay si weligeed oo laba badow wax kala iibsan jiro neefka adhiga ee islaantaas raacdo ee roobka ilaahay ka cabta in dawladdu waxba ku kordhiyo ayaa dadkaas ku wada noolaa gaarigaan lagu wada watay dawladdaasuna ay ku socotay dadkuna ay dekaduna ay dekad ku ahay عبد الناصر خالد سعيد ورركا هون كيبل تي في مقالة دبي